warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in dib u dhac uu ku yimid shirkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku cazumay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyadoo qorshuhu ahaa in uu furmo maanta oo Axada 5 bisha Juulaay qorshahuna ahaa in uu soo gabagaboobo 8 bishan sababta dib u dhaca shirkan ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka timid kadib markii madaxda dowlad goboleedyada ay diideen in aysan ka qayb galaynin shir lagu qabanayo Muqdisho si gaar ah madaxda diiday ayaa waxa qayb ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe labada mas'uul ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in aysan ka qayb gali doonin shirka uu madaxweyne Farmaajo ku cazumay kadib markii si gooni ah ay kulamo u yeesheen baarlamaanada Jubbaland iyo Puntland wararka ayaa waxa intaas ay ku darayaan in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay cabasho ay ka muujiyeen madaxda dowladda Soomaaliya iyagoo ku eedeeyay in aysan fulinin ballanqaadyadii hore ee u wada galeen taas oo ku aadaneed in la hakiyo xeerka doorashada iyo baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto mas'uul dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo shir isugu yimaaday madaxtooyada Soomaaliya oo shirkan qaban qaabadeed lahayd ayaa arintan ilaa iyo hadda aanan ka hadlin balse warbaahinta ayaa waxa ay dhagta u taagayaan xogaha ka soo baxo madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo shirkan dib u dhac ku yimid waxa ay kaga jawaabaan Cabdirashiid Sandheer telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Muqdisho